بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa galabta uu isku shaandhayn ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada ee xukuumadda dan qaran. Isku shaandhayntaasi waxa ay saameynaysaa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda gaashaandhigga. Ra'iisul wasaaruhu markuu arkay qodobada 97, 98 iyo boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda dan qaran, markii ra'iisul wasaaruhu uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada, waxa ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre uu magacaabay xubnahan soo socda. mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Daay waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. mudane Ambassador Ahmed Macalin Fiqi Ahmed waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. wabillahi tawfiiq.